السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم معنا ونكسن داوديال كسو دواده وررك عالمك oo aad kala socotaan qaranka TV mar walba waxa uu taagan yahay inuu ku soo gudbiyo wararka saxda ah ee qarankaaga quseeya isla markaana meesha uu ka saaro wararka been abuurka ah ee la isla dhexmarayo iyo waliba wararka sida gaar ahaaneed ay ugu farxayaan cadawga ummadda Soomaaliyeed waxaan markan idin soo gudbinaynaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee ka jira gudaha dalka Soomaaliya waxaana kamid ah taliyaha booliiska oo war ka soo saaray dilkii Almas Elman oo lagu dhex dilay xarunta xeelada xalane isla markaana dawladda waxa ay sheegtay in tallaabooyin ay qaadi doonto sidoo kale ee daawade waxaan ku soo gudbin doonaa warbixin kale oo ku saabsan Sheekh Somo oo ah gudoomiyaha waa afayeenka majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa gabi ahaanba wuxuu ka soo horjeestay in markaasi uu magaalada Muqdisho muxaadarado weyn ku qabto Sheekh Maxamed Umul oo kamid ah mashaayikhda waaweyn ee Soomaaliyeed oo magaalada Muqdisho ku sugan waan idin soo gudbin doonaa warbixintaasi ninkii weeraray xaruntii Cabdiweli Sheekh Cali Cilmiyare ee magaalada Gaalkacyo ayaa isaguna dil toogasho ah lagu xukumay iyadoona la leeyahay daawade ninkaasi dambiyada uu galay waa lagu helay fal laga argagaxo ayaa ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose kadib markii la arkay laba nin oo la gowracay oo la soo dhigay meel duleedka ka ah magaalada Afgooye maxay tahay ujeedada loo gowracay ilaa iminka baaritaanada maxay sheegayaan waan ku soo gudbin doonaa daawade asaate marka ugu horeysa ee daawade hadii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar asxaabtaadana la wadaag wararka qarankaaga quseeya ee sida joogtada ah aan kugu soo gudbin doono wararka aan idin haynana hadii aan u gudo galno taliyaha booliiska waxa war uu ka soo saaray dilkii Almas Elman oo lagu dhex dilay xarunta xeerada xalane iyadoona arintaasi ay ahayd mid ay si weyn uga naxeen guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed shalay waxa gudaha xerada xalane oo ay Amisom gacanta ku hayso lagu dhex dilay Almas Elman oo mar soo noqotay xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Kenya haatana ka tirsaneyd xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta midowga ee Yurub gaari ay saarneed ayaa shalay rasaas lagu furay waxaana soo gaaray dhaawac markii dambe keenay inay u geeriyoto waxaana xusid mudan inaan ilaa haatan si rasmi ah loo ogeyn cid dishay taliyaha booliiska ummadda Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed ayaa sheegay in ay gal dacwadeed ka fureen laanta dambi baarista ee Muqdisho si baaritaan dheeraad ah loogu sameeyo dilka loo geystay ee Almas Elman oo ahayd gabar ku firfircoon in bulshada Soomaaliyeed ay caabiso baaritaanka dilka Almas oo ka dhacay gudaha xerada xalane ayuu taliye Cabdi Xasan Maxamed sheegay in khubaro iyo saraakiil aqoon durugsan u leh baari doonaan wararka ayaa waxay sheegayaan in Almas ay ka soo baxday shir ay midowga Yurub ku qabteen xerada xalane waxaana ay doonaysay inay dib ugu laabto magaalada Nairobi iyadoo diyuurad ay u taagneed airportka magaalada Muqdisho dilkaasi waxa uu ahaa dil naxdin leh warar hoose waxay sheegayaan in ciidamada Amisom ay ka dambeeyaan sidoo kale baraha bulshada waxa lagu baahiyay rasaasta la sheegay inay ku dhacday Almas oo dhirarkeedu ay dhameed 6 cm laakiin daawadayaal wixii booliiska Soomaaliyeed ay ka soo saaraan warbixin ah geeridaasi naxdinta leh waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe isla wararka caasimada Soomaaliyeed ee Muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye Sheekh Somo oo ah afayeenka majmaca culimada Soomaaliyeed ayaa waxa uu ka soo horjeestay in magaalada Muqdisho jimcaha galabkii uu ku qabto muxaadaro aad u ballaaran Sheekh Umul oo kamid ah mashaayikhda Soomaaliyeed Sheekh Cabdiqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abubakar Sheekh Somo oo ah afayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed ayaa ka hor yimaaday muxaadaro la sheegay in garoonka Engineer Yariso ee magaalada Muqdisho uu ku qaban doono Sheekh Umul oo dhawaan gaaray magaalada caasimada ah ee Muqdisho isla markaana ka wakiil ahaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo ururiyay lacago aad u tiro badan oo loogu talagalay in lagu caabiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee wabiga Shabeelle uu ka sameeyay meelo badan oo Soomaaliya kamid ah gaar ahaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Sheekh Somo ayaa Sheekh Umul ku eedeeyay in uu sabab u yahay isaga fidnada iyo musiibada ka jirta dalka sida uu hadalka u dhigay isla markaasna aan la aqbali karin in uu isaga qabto muxaadaro ka hadlaysa fidnada iyo sida looga hortagi karo musiibooyinka Sheekh Somo ayaa Sheekh Umul ku eedeeyay sidoo kale daawade inuu faafiyo caqiido qaldan sida uu hadalka u dhigay isla markaana culimada diinka ahlus sunna uu ka aaminsan yahay inay yihiin gaalo
wuxuu sheegay in culamo badan oo uu gaalaysiiyey dartiis ay qabri ugu jiraan dadka muqdishona ay og yihiin arrintaasi. sidoo kale Sheekh Somo ayaa waxa uu sheegay in telefishinka qaranka Soomaaliyeed ay tahay goob laga hanuuniyo ummadda Soomaaliyeed isla markaana loo baahan yahay in lagu degdegin baahinta muxaadaradaasi. inkastoo wax war ah aysan ka soo bixin dhinaca Sheekh Umul oo magaalada Muqdisho ku sugan, haddana arrintan waxa ay tahay mid si weyn loogu hadalhayo baraha bulshada. sidoo kale bulshada Soomaaliyeed waa ay ku kala qaybsan yihiin, qaarkood waxa ay taageersan yihiin fikirka Sheekh Somo halka qaarkood ay sheegayaan in marnaba aysan habooneen in Sheekh Soomaaliyeed loo diido in bulshadiisa uu la hadlo isla markaana sheekha xaq uu u leeyahay. wixii warar ah ee ugu dambeeyay aan helayno waxay sheegayaan in sidoo kale wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Diiriye iyaduna ay barteeda Facebook ku soo qortay daawade in wasaaradeeda dhalinyarada iyo ciyaaraha aysan waxba ka warqabin isla markaana aan loo soo sheegin muxaadaro ka dhacaysa garoonka Engineer Yariso ee degmada Cabdicasiis gobolka Banaadir. waxayna sheegtay in haddii culimada Soomaaliyeed aysan waxba ku soo wargelin aan halkaasi aysan suuragal ahayn in lagu qabto muxaadarada ee la sheegay inuu qaban doono Sheekh Umul oo kamid ah mashaayikhda waaweyn ee Soomaaliyeed ee sida weyn diinta looga dambeeyo. wixii warar ah ee ku soo kordha waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe biidhnillaahi kariim. markana haddii aynu eegno ninkii weeraray xarunta Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare oo ahaa wadaad caan ka ahaa magaalada Gaalkacyo ayaa dil lagu xukumay kadib markii dambigaasi lagu helay, iyadoona maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed muddooyinkan ay laabtay beegsiga xubnaha u xiran falalka al-shabaabka ah ee ku jira xabsiyada. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa xukun ay ku rideen in loo haysto weerar lagu qaaday 26 bishii 11aad ee sanadkii 2018 xarun uu magaalada Gaalkacyo ku lahaa wadaad lagu magacaabi jiray Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Xasan Cali Nuur Shuute oo dhageysiga kiiskan u tagay magaalada Gaalkacyo ayaa ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee lagu riday Cabdullaahi Cali Aadan oo ah ninka lagu eedeeyay in falkan uu ka dambeeyay. xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in ninkaasi uu al-shabaab kaga biiray degmada Qansax Dheere ee gobolka Baay isla markaana uu ka qayb qaatay weeraro iyo dilal loo geystay askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. wararka ayaa intaasi ku daraya xarunta Cabdiweli Cali Cilmi Yare ayaa waxa uu weerarka ka dhacay 26 November 2018 waxaana al-shabaab ay weerarkaas sheegtay mas'uuliyadiisa in ay markaasi leedahay isla markaana ay ujeedadu ahayd in Cabdiweli Cali Cilmi Yare uu nabinimo sheegtay, inkastoo sheekhaasi uu arintaasi beeniyay mar uu wareysi siiyay idaacadda BBC-da iyo waliba warbaahinta kale ee Soomaaliyeed. ninkan ka tirsan kooxdii weerarka soo qaaday xaruntaas ayaa qirtay inuu gacantiisa ku dilay mid ka mid ah ciidamada gaarka ah ee dowladda oo halkaasi u tagay sidii loo badbaadin lahaa dadkii ku go'doomay weerarkaasi. gudoomiyaha maxkamadda ciidamada ee qalabka sida Soomaaliya Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in kadib markii ay dhageysatay doodii xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada iyo qareenka difaacayay la cadeeyay in Cabdullaahi Cali Aadan uu ka tirsanaa al-shabaab galayna dambiga lagu soo eedeeyay isla markaana lagu xukumay dil toogasho ah. dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay soo dhaweeyeen go'aanada maxkamadda ka soo baxay, iyadoona ay sidoo kale sheegeen in magaalada Gaalkacyo aan looga maarmeyn inay yimaadaan mas'uuliyiinta maxkamadda si ay markaasi u xaqiijiyaan in guud ahaanba ay guuleysteen xukunada kala duwan ee la doonayo in lagu rido guud ahaanba dadka iyagu eedeymaha kala duwan loo haysto. waxaa jira dad badan oo dambiyo kala duwan u xiran isla markaana waxa ay ka codsadeen waxgaradka magaalada Gaalkacyo in maxkamadda ay diiradda saarto sidii kiisaskaasi looga meel gaari lahaa. daawade haddii aan markana eegno faahfaahin ku saabsan 2 nin oo lagu gowracay duleedka Afgooye, arintaasi oo fal aad looga argagaxo isla markaana dadka Shabeellada Hoose ku nool intooda badan ay hadal hayaan. wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in gobolkaasi lagu gowracay 2 nin
taasoo argagax ku abuurtay dadka deegaanka. Labada nin ayaa waxaa xalay lagu gowracay deegaanka Muuri oo 15 kiiloomitir u jira degmada Afgooye, waxaana saakay dadka ay kusoo tooseen meedadka labadaas nin oo wadada dhinaceeda yaala. Maxamed Abuukar oo kamid ah dadka reer Muuri ayaa sheegay in saakay ay ku waabariisteen meedadka labadaas nin oo qoorta ka go'an. Maxamed Abuukar ayaa waxa uu tibaaxay inaanay garanayn cidii ka dambeysay falkaasi, sidoo kalena uu muuqaalka raggaasi ku cusub yahay oo dadka deegaanka aysan garanayn. Waxa uu intaasi ku daray in bulshada ku dhaqan deegaanka Muuri ay hadal hayso labada nin la qoorgooyay falkaasina uu yahay mid argagax geliyay. Saraakiisha ciidamada dowladda ee maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa aysan ka hadlin tallaabada lagu gowracay labadaas nin, laakiin waxaa la sheegay in ay war ka soo saaraan in looga fadhiyo. Inkastoo si dhab ah aan loo ogeyn cidda ka dambeysa, haddana dadka deegaanka waxa ay leeyihiin waxa anagu aan walwal xoogan ka qabnaa sida ay xaaladda ammaanka tahay, iyadoona ciidamada ammaanka laga dalbaday inay kordhiyaan guud ahaanba sugidda ammaanka ee gobolka Shabeellada Hoose. Wahagaag daawadayaal, markana waxaynu eegaynaa warbixin kale oo ku saabsan horumarka ay sameynayso magaalada Muqdisho iyo waliba magaalooyin kale ee dalka Soomaaliyeed. Haddii aynu eegno magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaa sidoo kale daawade aad ugu soo badanaya dadka qurba joogta muddada ahaa iyagu u xiisay in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan. Waxaana maalin walba aan idin soo gudbinaynaa magaalo kasta iyo horumarka ay sameynayso. Magaalada Muqdisho waa magaalo caasimad ah oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, waxaana magaalada hadda ay ku soo badanayaan dadka qurba joogta ah, kuwaasi oo ubadkooda doonaya in si fiican ay keenaan, isla markaana waxa ay iibsanayaan boosaska. Sidoo kale horumarada magaalada Muqdisho ka jira waxaa kamid ah in boosaskii 10 sano ka hor raqiiska ahaa haatan ay sii qaaliyoobayaan, isla markaana dhismayaal aad u qurux badan ayaa magaalada kusoo kordhaya. Waxaa afka qalaad lagu yiraahdo apartmentsna dhismayaasha ka kooban loo gato sida kaliga ah, laakiin halka dhismo ku wada yaala ayaa soo badanaya. Tani oo inta badan dadka caalamka ku sugan ay aad uga yaabisay, isla markaana dagaal ka soo kabsanaya dhismo noocaas ahana haysta ay adduunka aad ugu yar yihiin. waxaa muuqata in dadka ku nool magaalada Muqdisho iminka ay yihiin kuwa nolosha la qabsaday. Sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa aad ugu soo badanaya guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda wax ku bartay ee doonaya in bulshadooda ay u shaqeeyaan. Horey maamulka gobolka Banaadir wuxuu sheegay in shaqaaleysiin cusub uu sameyn doono dhalinyarada Soomaaliyeed, taasi oo fursad weyn u noqon karta, iyadoona ay doonayaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan. waa tahay daawadayaal, waxaynu soo gaarnay qaybihii dambe ee wararkeena. fadlan haddii aad ku cusubtahay Qaranka TV, subscribe inoo saar, asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda qarankaaga quseeya ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. fadlan waxa uu ka turjumayaa Qaranka TV baahidaada gaarka ah iyo inaad ogaado xaaladda rasmiga ah ee dalkaaga hooyo. sidaad nooga barteen xiliyadan kale waxaan idiin soo gudbinaa su-aasheena maantana daawade waxa ay ku saabsan tahay waxaa muuqata in ay isku soo dhawaadeen mucaaradka iyo muxaafidka, iyadoona la sheegayo in markaasi arintan ay guul u noqon karto ummadda Soomaaliyeed. maxaa la gudboon guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed ee baraha bulshada isticmaala oo qaarkood sheegaya in waxba aysan ka jirin in heshiis ay gaareen madaxdooda, isla markaana arintaasi ay tahay mid propaganda ah. waxaa jirtay daawade haddii aan dib ugu laabano markii madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya ay heshiis ku gaareen magaalada Nairobi, in markaasi wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu sheegay inay la yaaban yihiin Soomaalida oo madaxdooda waxay u sheegaan maahayna wax kale dalal kale laga sheego dhageysanaya. maxaa la gudboon ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda isticmaala baraha bulshada sheega in wax heshiis uusan jirin, sheega in lagu kala tagay Soomaaliya oo aysan cidna isku soo socon. dabcan fikirkaaga xor baad u tahay, adigoo cidna aan aflagaadeynin, adigoo cidna aadan markaasi si gaar ah markaasi siyaasi gaar ah aadan ugu xadgudbeen, adigoo qabiil gaar ah ku xadgudbeen ayaad fikirkaagana la wadaagi kartaa. mar walbana fikirkaaga saliimka ah aad baan u soo dhaweynaynaa. intaasna waxa inooga idil wararkii caalamka oo aad kala socoteen Qaranka TV. Qaranka TV waa u doodaha qaranka ummadda Soomaaliyeed, isla markaana wuxuu qayb ka qaadanayaa dib u dhiska qarankaaga. fadlan asxaabtaada la sii wadaag mar walba oo aan idin soo gudbino warbixino xasaasi ah.